إنا لله وإنا إليه راجعون. halkan waxaan tacsi uga dirayaa kula wadaagaya qoyskiisa qaraabadiisa iyo shacabka Soomaaliyeedba abwaankii weynaa abwaan bedel jaamac xirsi oo xalay kooxo hubaysan oo argagixisay ay ku dileen xaafadiisa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. haddii aanu nahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ay hoos yimaadaan bahda hal-abuurka iyo abwaanada iyo hobaladu waxaanu si gaar ah noo taabatay tacsidaas abwaanka. waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo dhammaan hal-abuurada iyo abwaaninta Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi abwaan bedel jaamac xirsi. abwaanku wuxuu ahaa nin Ilaahay siiyay hibooyin la yaab leh oo hal-abuurkiisa halka uu joogo ka bilaabi karayay. xigmadiisuna ay ahayd runtii xigmad aad u waafiya oo aad u qiimo badan. waa iiman jiray xafiiskanu iigu iiman jiray talo iyo tusaale ayuu bixin jiray. waxa ku weynaa dawladnimada iyo wadaniyada iyo qarannimada, waxa ku weynaa Soomaalinimada, waxa ku weynaa dal jacaylka, waxa ku weynaa fanka iyo afka iyo dhaqanka iyo suugaanta. Ilaahay u naxariisto marxuum bedel way naga hooseeyaa. ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo ummadda Soomaaliyeedna tacsi ayaan ka gaarsiinayaa. waxaan u sheegayaa cadowga inaanay haldoorka Soomaaliyeed maalin walba hooyooyinka Soomaaliyeed haldoor bay dhalayaan dhammaan maayaan, laakiin dambiga waxa qaadaya qofka maanta qof muslim oo Sooman dilaya. Ilaahay u naxariisto abwaan bedel wuxuu inaga u dhamaanteen waa inaga wada baxay, gaar ahaan bahda suugaanta iyo hal-abuurka Soomaaliyeed. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.